أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحابي رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير. مركزتو joogtaanba waan idin salaameynaa aniga aweys. waxaan maanta idin wadnaa saliidan baan idin wadnaa, saliidan oo ah saliida timaha. Saliida timaha markaan leenahay rag iyo dumarba saliidan way ka siman yihiin ama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحابي رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير. مركزتو joogtaanba waan idin salaameynaa aniga aweys. waxaan maanta idin wadnaa saliidan baan idin wadnaa, saliidan oo ah saliida timaha. Saliida timaha markaan leenahay rag iyo dumarba saliidan way ka siman yihiin ama dumarka saa isticmaala ama ragba saa isticmaala, ma dhahayno rag iyo dumar way ka siman yihiin. saad ujeediinba waa laba nooc, saliidan laba nooc waaye. intaa markaa saliida sharaxeen waxaa wax yar ka dhahayaa timaha iyo dhibaatooyinka timaha ay gaadhaya dadka hadda zamankan jooga. inta badan 80% rag iyo dumarba waxay ka cabanayaan tintii oo nabaad guur noqotay, tintii oo markaa nabaad guuraysa. rag iyo dumarba waxay ku leeyihiin bidaar ayaana gashay. waayahay tinta markaa dhibaatooyinka soo gaadhaya oo bidaarta keenaysa maxaa keenay, maxaa u sabab ah? tinta laba siyaabood ayay ku nabaad guuri kartaa. midda koowaad waxaa waaye qofka gudihiisa nafaqa darro haddii uu ka jiro, jirkiisa fitaaminadii loogu talagalay haddeen u dhammaystirnayn, qofka haddii markaa nafaqada jirkiisa haddee weak yahay, hadduu tabcan yahay, tintaa ka nabaad guuraysaa, lafihaa burburaaya, skinkia dhammaanaya. tinta kaliyata ma dhammaanaysa, laakiin isaga dhanaa dhammaanaya. marka qofkii jirka kale uma jeedo, laakiin tintii unbuu u jeedaa, wuxuu leeyahay tintii ayga dhammaatay. laba qof waxaad arkaysaa jirkiisa iska dhisan yahay, caafimaad qaba, laakiin tintii ay ka dhammaatay. sababta maxaa waaye environmentiga. qofka meel buu tegay, meel kale u guuray, waxaa laga yaabaa biyahaas uu ku maydhanayo inuu la qabsan waayo, qoraxdaas inuu la qabsan waayo, hawadaas inuu la qabsan waayo, shaawarka toos timaheena ugu dhacaya madaxa, kuleelkaas inay timihii iyo skinkii ma lafta timaha kasoo baxaysa inay dhaawac u geystaan. shaambuuyada aan ku qabaysanayno shaambuu kala nooc oo chemical badan laga soo buuxiyey. inta badan waxaan arkaynaa tintii inay go-aysa, balse skinkeena gudaha xitaa dhibaato badan ay u keensanayaan timaha. neerfihii baa xanuunaya, qof dad badan waxaad arkaysaa neerfa xanuun baan qabaan ku dhahayo, dhibku meel uga imaadayna ma garanayo. dawooyinkan aan marsano oo nafaqooyinka, saamunahan aan ku qabaysanayno, saliidahan hadda layska soo sameyno oo la marsanayo, kulli waxay keenayaan nabaad guur. marka qofkii markaa ma dareensano, wuxuu leeyahay tintii baa iga googo'day, tintii baa iga siimaysa, tintii baa iga jajabaysa. ani in muddo ah markaa madaawaadka ama herbalka in muddo ah waan kusoo dhex jiray, in muddo ah oo aada u badan baan kusoo dhex jiray. ani markaa saliidan ayaan sameeyey. saliidan aniga nafsad ahaanteeda in muddo ayaan isticmaalay. wax badan ba iga tartay, wax badan ba iga anfacday. tinteeda dadka tintooda nabaad guurtay baan kamid ahay, especially halgees oo dhinaca bidix ah. alxamdulilah tinteeda way soo noqotay. markii dambena dadkii waan usoo bandhigay, dad badan oo gatay customarka codkoodana gadaal baan idinkaga soo daynaynaa oo soo sheegay siduu ilaahay la ogyahay wixii ay ka faa'iidaysteen saliida. marka saliida waa laba nooc. waxaa laga sameeyey markaa saliidan herbal, wax iyada laga sameeyo dhan waa natural, waa geedo natural laga sameeyey. laba nooc waaye. tan markaad ujeedaan oo xabasuudda ay ku sawran tahay waa midii nafaqada ahayd oo tinta soo kobcinaysay, hadday neerfa xanuun tahay, hadduu caajis qofkii hayo, hadduu madaxa xanuunayo, hadday tintii googo-aysay, hadday tintii jajabaysay, hadday tintii soo baxaynin, kulli saliidan waa saliidii caawin lahayd waaye. marka qofka waxaa laga rabaa saliidan inuu marsado isbuucii 2 mar. haddii tintiisa dadka dawada marsaday oo aad tintii soo dhaawacatay ay tahayna labadii cishaba 2 cisho kadib hal mar uu marsanayaa. wuxuu marsanayaa markaa wuxuu ku joogayaa, hadduu qof degdegsan yahay oo waqti badan aan haysanin 3 saacadood meelahaas ku joogayaa. haddii kalena habeenkii intuu marsado ayuu ku seexanayaa, aroortiina wuu iska maydhayaa. markuu tan iska maydho markaa nafaq ahaantiiba tan uu isticmaalay. qofkii markuu timihii maydho muxuu rabaa? saliid uu marsado ayuu rabaa. saliidan waad marsatay, waxaad rabtaa saliid kalood marsato. saliidii markaad isla saliidahan kale hadday noqoto wax badan kaama caawinayso. sidaas darteed waxaan u sameeyey saliidii kale oo ah daily uses, yacni saliidii normalka loo marsanayay. saliida markaad soo maydhato
maanta marsan oo berri marsan hadhow marsan laakiin saliidii markastaba aad marsan lahayd oo sida caadiga aad u marsan lahayd waa tan orange-ga ku sawran tahay. waayahay rag iyo dumar say u marsanayaan isku sibay u marsanayaan. ragga garhkana way marinayaan. dad waxaa iska jira iska madax xanuun qabaan neerfaha ku masaajeynayaan. markaa saliidan jirkoo dhan ayuu qofku marsanaya, wax badan ay ka caawinaysaa. kasta markii marsaday ayaa wax badan kasoo sheegay. ani markaa haddaan idin dhaho anaa marsaday anaa sameeyey ani way caawisay, waxay noqonaysaa wax aniga aan productigayga aan xayeysiinayo. sidaas darteed kasta markii marsaday ayaa waxaan ka codsaday siduu ilaahay la og yahay iyagoon waxba ku darin waxbana ka naaqusin, markay marsadeen wixii ay ka faa'iideen siduu ilaahay la og yahay rag iyo dumarba inay jawaabtii kasoo bixiyaan. jawaabtu way soo bixiyeen iyadoo cod ah ayaan idinku soo daraynaa insha allah. wixii su-aalana waadna soo weydiin doontaan. telefoonka Nairobi aad kala soo xiriireysaan haddaad gadanaysaan, online baa lagu gadayaa. xamar way tagtay saliidan. qofkii markaa muqdisho jooga saliida meeshuu ka heli lahaa telefoon baan idinku soo qoraynaa. markaa saliidan qofkii rabo inuu baroobeeyo ama isdhaho aleelehe customerkan codkooda waa i qanciyaana waan gadanayaa, qofkii dhahaa saddexda meel uu kale ka helayo lambaradoodii waxaan idinku qoraynaa qaybta u dambeysa oo maxaan ku dhahay barnaamijka markaad daawataan. aad baan idin salaamaynaa. rabadaanta ilaaha naga aqbalo, kuwii ka faa'iidaysta ilaaha naga dhigo. aniga aweys baan idin salaamaynaa. waxaan idinka tagnay في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله سليدي waxay ii noqotay aniga kulay shakhsiyadayda waxay ii noqotay waxaan la arki karin oo la maqal karin ma sha Allah. timahayga waxay ahaayeen wax jajabaya, jajabkii oo dhan waa ka baabeen. waxay ahaayeen wax dhawaaqaya markii shanlada la mariyo qajacici wuu ka baay. madaxii ay ii qaboobay. timihiyaaba waxay ii noqdeenba wax jilicsan oo ayaga dhanba israacaya jajabkii iyo siibashadii ka ba'ayso. maasha Allah aniga saliidii way qancisay waana u bogay. muxuu haytoy aad bayna madaxa iyo tinta iyo waxa dhanba igu fiicnaatay. tintii oo waxaan ba arkayba israacayso oo isla socoto oo kaala iska arag ah. caafimaad ahaan madaxayga xitaa xanuun buu ku jira xanuunka uu iga baay. maasha Allah war wax la heli kara ma ahan baan ku wax la heli kara ma ahan toban xabay inaan kasoo doonto ma ogiye wax la heli kara ma aha. maasha Allah qofkii hadda doonayana anigu aad waxaan ugu bogaadinayaa saliidaha kale oo dhan inay iska dhaafaan oo ayar ayada ay isticmaalaan. wax u dhimahaya ma ahan. tinta wax ma dhimayaan, madaxooda wax ma dhimayaan, indhahooda wax ma dhimayaan, kaala iska arag waay. maasha Allah indhahay xitaa xanuuni jira xanuunkii iga daayay. maasha Allah aniga waa u calaykum customerka saliida katay ayaan kamid ahay. saliida maasha Allah waa saliid aad u wanaagsan runtii intaan arkay. koow caafimaadka ruuxi neerfi iyo haddii maaragtay aad madax xanuun iyo wax qabtay way fiican tahay 100%. laba tinta way jilcisaa. 3 tinta way kala bixbixisaa. 4 waa saliid aad u qiimo badan runtii aniga waan ka helay aad iyo aad baan uga helay. marka waxa weeyaan maasha Allah saliida hala gato. intii baratay intaana baraninba anigu ma badeynay horta waa sidaan u bilaabay saliidan baana dhol maalintan bilaabay iigu dambeeyso ilaahay baa iigu og. marka maasha Allah saliida lagu soo dhawaado hala gato. waxa weey waa customerka anigana kamid ahay. marka maasha Allah saliidaas runtii way qancisay aad iyo aad. marka welcome ku soo dhawaada saliida. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هول ما شاء الله خير الله كسي سليدان طيب في عن لي أنا وصو سميسي إلهي أجر يا سناد أنا سوكو بكرنا كاسي وبعد سليد وان كل بانين سليدو كان مقالة ديالو وحاواي وحجر معها مركي لو فيري سليدان لأن سليدان فإذا ينبضى أنا وماشان لو سوكو بكرنا لي أنكو أركي شخصيا أنا waxaa ka kow ah maxay ahaydey qofkii tintiisa ku go'ayso inay tinta ay go'a ka yareyso, bixitaanka tinta ay bixinayso, tinta ay jilcinayso. Allahumma musta'aan. tinta ay jilcinayso iyo tinta ay ka dhigayso madow, ay madow ka dhigayso, ay madoobeynayso oo qofku ku weydiinayo madoobayso ma marsatay shaki ka galayo. taasi waa taas. midda kalena waxaa waaye midaan labada saliidood midda isbuucii laba mar la marsanayo faa'iido weyn inay leedahay oo midda nafaqada muhiimka ah. taasi waxaan ku arkay matalan oo kale qofkii madax xanuun qabo kale
habeenkaad marsatid subaxaas waxaa soo kacay adoo fresh ah oo maasha allah maxay aheeday marka waa aadaa loogu boga kheyr allah kusii saliid aada u fiican waaye noo soo badi saliida insha allahu tacaala ayagoo badanoo noocyo badanoo noo soo sameyn calaykum ismacaaney saliidii warkeedan ku wadaa saliidii maasha allah waqti gaaban baan isticmaalay saad og tahayba laakiin already waan arkaa maxaa la dhahay resultigeeda aad iyo aad bay u fiican tahay aad iyo aad wax la heli kara ma ahan waan arkay timaha marka horta marka mogtahay timaha markay iska leeyihiin oo jajab iyo oo iska yihiin kuwa oo la mariyey daawo ama kalar oo iska dandarooway kiskis bay usoo celisaa waan arkaa markaa marsatid timaha way isku kaa raacayaan hataa intii la gaarin oo isku soo celiska timaha yacni kala harharkii badnaa iyo wixii malah isku dhexdhacayaan maasha allah saliidda lama heli karo aad baan uga helay I wish dadka oo dhan markay isticmaalaan inay ka heli doonaan hadday gataan because qofka markuu wax ogeyn waxay is leedahay waxan yarkaa wax la sheegaya inay been tahay laakiin wax fiican baan ka gartay anoo oo muddo gaaban yar aan isticmaalayo weli bil hataa u dhoweyn I think 1 week iyo wax le waaya umaleyna 2 isbuuc hataa iima buuxsmi laakiin waxaan dareemayaa isbedel maasha allah aaday u fiican tahay maasha allah horey u soco ilaahay nuurkana kuu saaro dadka hadday bartaan ayagaaba laga karaynin soo doonan doonaa intii la baranin un waay waan arkayaa because aniga markii hore aan intaan la iisha sharaxayay saliid oo waxtar saas u leh ilaan saliido badan baan aragnay gadanay oo marsanay oo waxba saas isbedelin baan ku aragnay ma ogtahay marka qofka iska fiiri unbuu u gadanaya laakiin markuu ogaado waa tankiibuu kusoo dhahaya adiga aadan u mahadsan tahay kuwaas mid kamid baan ahay waxaan ku leeyahay aad baad u mahadsan tahay saliidda noocan inaa noo soo saartid tankiyu alood abaayo insha allah dadka isticmaalaya oo amasan weli gadanin hadday gataan oo arkaan ayagaama ka haray dooninba saan arkayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saliidada fiican waaye ani waxaa ku arkay 4 benefit afartaas waxay kala yihiin first tinta way jilcine second tinta black ee ka dhige thirdna tinta waa tinta ku bixine midda afraadna waxaa waa tinta goysa tinta goyitaankaas oo yarayne sidii hore ma u goyso marka saliidan waa saliid aad loogu bogay very nice oil waaye maasha allah